kala jira jiida ku soo jeeda badda cas iyo gacanka cadmeed ee dhulka Soomaaliyeed ee bari iyo galbeed wada jiidan ayaa waxa ku yaala dhul la yiraahdo Cal waa magac juqraafiyeed oo bii'adda ama deegaanku sida uu u yahay dhulka Soomaaliyeed ciidda iyo dhirta iyo dhagaxa uu kala leeyahay oo kala duwan oo midba uu magac yeesho jiidaas oo dhan ka mid ah cashaasi waxay u qaybsantaa laba magac waxa la yiraahdaa calmadow iyo calmiskeed inta barigu madow ma leh oo lama yiraahdo calmiskeed baa la yiraahdaa samayskeedu wuxuu ka soo jeedaa haddii aad u fiirsato waxa Great Rift Valley la oran jiray dhulka Kenya iyo bariga Afrika dhexdeeda qura ma ahayn laakiinse marka riftkaasu samaysmay ee geeska Afrika ayaa la ka mid ahi ay hoos u go'day oo ay halkaa gaadhay riftka waxa ka samaysmay magacyo kala duwan oo cashaasi dhexdeedu ay u qaybsanto oo ay kala leedahay waxa calay calma tahay ma aha marka xaaxiga iyo xeebta iyo halka badda ay mawjada ku soo tuurto ama ciideeda timuuxa la soo dhaafo ayaa la soo maraa meel la yiraahdo guban oo aad moodo marka Ingiriisiga ay u bixiyeen qoladii isticmaalkii Ingiriisku uu dhulkii oo dhan guban ka dhigay ma wada gubna laakiin se buuraley aan iyadu geed ka bixin oo gubanka la yiraahdo waxa ku xiga qayb kale oo isla cashiya oo la yiraahdo calcaska waxa ku xiga qayb kale oo la yiraahdo ragarka markaad hore uga sii baxdo waxaad u timaadaa gadoobka markaad uga sii sare u sii aado ayaad u timaadaa madarku wuxuu u sii qaybsamaayuu yeeshaa saddex dhaarac saddexda dhaarac qaybahooda waxa la kala yiraahdaa marta hoose marta dhexe iyo marta sare marka aad ka soo gudubto ayaad soo gaadhaa jarcaleedka kilifka kala qaybiya casha iyo oogada marka aad ka soo baxdo oo funducihiisa kala duwan uu leeyahay aad ka soo kormarto ayaad u timaadaa qaybta la yiraahdo cayowga ilaa madarka weeye inta madowga asalka ah yeelata marka dhulka deegaan ahaan loo tegayo labada caawo is helay ayaan la yaabanahay oo la yimaado oo ay tahay xilli sugan oo la dego oo loo soo guuro marka oogada ilaa hawdka iliilaha nugaaleed iyo soolasha iyo meel waliba ay abaarsato oo xilliga jiilaalka lagu magacaabo uu yimaado ayaa badda cas haysimada soo marta ee biyaha ka soo gudba bari carbeedka roobka ay ka soo qaado ayaa ku hoora oo buurtaasi qabata marka ay guluul catayso daruurtu oo ay madaxa ku dhifato buuraha halka ku yaala oo ay cayriyaantu isxidho oo uu roobka la yiraahdo wajiinaha ama haysimada ay cidiba meel u taqaano uu ku hooro ayaa cashi madoobayd si madoobaata marka horena waxay u madowdahay dhirta maqalalaanka oo mar walba evergreenka oo ku yaala ayaa magaca keenay oo ay sidaa u tahay oo loogu yaqaana midabka madow waa dooga haddii aad ka taabato oo aad aragto marka loo soo guurayo oo jarcaleedka korkiisa laysa soo taago waa labada caawa kulmay erey xoolaha aad wado waxa loogu heesaa oo lagu salaamaa casha marka la imanayo علي هويوي علي مهجلوي علي ونبط ما أنت ururkii haweenka ee hooyanimada iyo cashi marka ay
ku magac darsadeen markaa ururkaneenu calay hooyoy baa tihiin oo wixii hadda ka dambeeya daaqsintii iyo nurkii iyo wanaaggii ay cashaasu lahayd ayaa ururku xil buu qaaday ee laga doonayaa inuu soo liso oo uu keeno. haddaan ku dul maro dhirta eeg wax walba waa degaankaagii waa afkaagii inaad u fiirsato waxa ka madow dhirta geed madowga ah oo aan marna qallalan waxa ka mida oo ugu badan geedka dhosoqa salamacda xaydhamadka dhicirta qalaanqasha higlada mooliga iyo kuwa badan oo la mid ah dhirteeda mar walba qoyan geed qodxeedka ku yaala waxa ka mid ah geed qodxeedka qansaca iyo qaydarka xitaa noocyo quraca ah oo ka baxa oo ku yaala waxa ku yaala oo geed madowgii raaca garaska iyo dhir badan oo midho laga cuno waxa ku yaala cadaada iyo inta badan oo geed qodxeedka kuwa qaydarka waxa ay ku leedahay geedo aan meel kale oo dhulka Soomaaliyeed ka bixin iyo xoolo aan joogin waxay leedahay geedaha faleenka ee frankincense-ka dhirta xabagta laga gurto ee uu ka mid yahay yagcarka iyo falaxda iyo xudayga iyo malmalka iyo murkuda oo laga sameeyo waxyaabaha qaaliga ah oo la calmadow waa meel caynkaasa ee ma aha magacyada siyaasadeed yaan loo qaadanin oo la bixiyey oo land gadaal laga raacin doono waa magac samayska noocaasa u yiilay waxa ka dindima oo dhulbiyeedkaasi ay leeyihiin taabsinaha ka bilaabma meelaha aan tilmaamayo biyo joogta u socda oo loo yaqaan badowlahada waxa ay leedahay dhadhiimaha tifqaama oo buuraha salkooda ka soo baxa waxay leedahay biyaha ilo burqanaya oo joogta ah waxa ay yeelataa oo ka sii samaysma gaso sida uu dhulku buur iyo u yahay dhir jiq ah ayaa meelo bannaan oo wareegsan oo doomaarta quri ka baxdo oo biyo ceegaagaan oo gaso loo yaqaano oo beera ah ayaa ku gaashaysan oo ku wareegsan waa wax sidaa u eeg oo sida aad u malayso haddaba haweenka waayada tan kaalintooda la hadal hayo oo mar walba aynu gabdhaha ku ammaano oo niraahno intii dhulkii Soomaaliyeed uu burburay ama yeeshay uu ka tilmaamo aniga gabadh yar baa ii sheegtay waxaan ku tilmaamaa waayada dambe Luqmaan iyo jiilka dambe baanu maasooyinkii u daynay oo la gudbay waxaad ku tabisaa siyaabo kala duwan oraahda suugaanta haddaad ogtihiin gabadha yar waan idiin sheekaynayaa waxa la yiraahdaa xil dhalaan gartay culusa xil dhalaan gartay culusa baa sheekada tan la yiraahdaa maalin baa meesha aan ka sheego dhowr meelood oo aan ka tilmaamay malaa calmadow iyo ururkeedan Minnesota la sugayo marna kamaan sheegin adduunka meelo badan oo kale waa kaga soo sheekeeyay markii hore iyadoo socotaan la kulmi jiray laakiin maalin maalmaha kamida bal ka waran haddaad hooyo gabadh yar haysata oo la socoto meel rabta aad yar qaado intay gaadhiga iska furaan ay kursiga dambe ay fadhiisato oo
aad iska dhagaysato dhinacaaga sooma fadhiisan hooyadaa iyo gabadhaa yar sheekada dhex maraysa iyo waxa ay hooyada u sheegayso waxa la yaab kale oo dhegahooda aad ka maqlayso canugtaa yar waxgaradkeeda iyo sida loo rabeeyey aniga in deeqa ay lahayd ee la oran jiray iyo inay farxiyo lahayd iyo inay magacyada ay ugu inay xaawo lahayd iyo garan maayo hooyada iyo inanta yari waa isu yeedhayeen ku tiri oo markay fadhiisatayba inay suunka xidhato markay u sheegtay waxay weydiisay hooyo maxaa suunka aan u xidhanayaa maan haddaan iska fadhiisto dabeedna sida tallaabooyinka ay ugu sharaxday oo ay mid mid ugu sheegtay sababta ugu wacan iyo sida nabadgelyadeeda ugu badbaadan maray ma wada dhammayn kara ee canugtaa yari afka gashatay wax ay soo qaaday sida ay tartiib uga reebtay oo aanay dharbaaxin oo ku dhibin oo ay ugu sheegtay sida darisku noosha saarsaarani ay afkeeda hadday raacdo oo ay liqdo oo ay caloosheeda u xanuujinayso sheekadii maalin hore dhex martay markay laan caleen a meel ka goysay oo hooyadeed u diiday ayay u sheegtay in haddaad caleen geed ka goyso aad noloshaada ka goysay in ka mida oo ay u tilmaantay wax badan oo saynis iyo culuum walba baan maqlaa hooyadaasi sida aan ka arkay canugteedu tahay ilmuhu garaadkiisu wuxuu samaysmaa markuu uurka hooyo ku jiro siday u tasbiixsan jirtay oo ay waagaa ugu soo habtay u akhriyi jirtay oo ilmaha ka muuqata gabadhii yarayd baa yaabtayoo waxay hooyadeedu weydiisay horta hooyo wax walba oo aad ii sheegto oo aad tiraahdo waan la yaabaaye yaa adiga waxaan ku baray hooyo hooyadeed baa tiri haa aniga waxa i baray oo hooyo aan ku bartay markaan imtixaanka hooyanimada gelayo u fadhiisanayay ayaan diyaariyey waxa aan kuu sheegayo yartii baa tiri haa oo imtixaanka hooyanimada loo galo ayaad waxa kan ku barato hooyada ku noqotay oo aad haweenka ku noqotay haa bay tiri markaasay u sheegtay oo tiri alla hooyo hardaan dartay ilmatiiyalayd baa tiri haddaan gartay maxaad garatay bay tiri hooyo wallaahi waad gartay bay tiri haye hooyo maxaa garatay anigaa gartay haa hooyo waan gartay bay tiri oo ilayn kuwa imtixaanka ku dhaca ayaa aabbe laga dhigaa